هاي أقدرت سود هذا مقالكين ما أنتو حكوا بلعبنا يا ويل جرو 8 سنة مجلس محل هاي جيك ويل كان أيا فصح وحكوا جرا سكول كيسة إسلام مركي وحكوا لي عسومات أبيسة مجلس محلها ديفيد يجاك اسكو في عنو حرير كودن وامد آد وفي عنين ديفيد أو أباه وكفرح سنة إنه إمادو جيك لكن جيك أيا دنك كله وحوا هاي مد أن كفرح سنين بوقشة أبيس أو صوبقين جيك وحلو سود بينها جوريا waxaana la hadlayay aabihiisa laakiin aabihiisa ay wuxuu tusay waji aad u xun. Why do you hate me so much, son? wuxuuna u la hadlayay si qaab daran subaxdii ku xigtay asigoo fadhiyo balakoonka qolkiisa oo sigaar ku cabayo meeshaas ayuu isla markii wuxuu korka arkayaa gabar aad u qurux badan. Jack ayaa wixii soo jiidatay gabartan isla markii Jack wuxuu bilaabay inuu daba kaco gabartii. Jack asigoo dhuudhuumaaleysanayo ayuu wuxuu raadinayaa gabartii ayaa dhar wuxuu ku waranaysay gurigeeda. gadaashiisa waxaa ka imaanaya aabihiisa ayaa wuxuu u sheegay gabarta inay tahay deriskooda wuxuuna u sheegayaa gabarta inay jirto 40 sano. markii waxa uu imaanayso gabartii waxaana meesha la isku barayaa Jack iyo gabarta magaceeda ayaa waxa la Maria. hadda ka bacdina waxa ku cidoona Maria hadda ka badii gabartii waa dhamaatay. Okay. Maria waxay jirtaa 40 sano laakiin Ilaahay kuugu dhaariyay qofta ma 40 sano u eg. gabdhaha Soomaalida waxa la yaabaa inay 40 sano markay jiraan ay u ekaadaan naaga jira 90 sano oo aalmitay jimkan aasta. Mom, what are you doing? Today I climbed trees. What are you doing, Mom? Jack wuxuu ku fiican yahay asiga sawir qaadista waana photographer. Jack wuxuu aasanayaa meel duur ah meelahaas ayuu wuxuu ka soo qaadanayaa sawiro asigana aad ayuu wuxuu u yaqaanaa kaamirada. isla markii Jack wuxuu ku soo noqonayaa xaafadiisa wuxuuna daawanayay sawirada soo qaaday. mar kale ayuu waxay kulmayaan Maria mar kale ay kulmaan isla markii wuxuu u sheegayaa Maria asiga wax ku saabsan aabihiisa asiga inay yihiin laba qof oo aad iskugu fiicnaynin. Maria wuxuu u sheegayaa inuu hooyadiisa la furo waqti hore wuxuuna u sheegayaa aabihiisa inuu ka dambe guursado naag kale wuxuuna u sheegayaa asiga inuu la noolaa jiray eedadiisa iyo aabihiisa laakiin eedadiisa ayada qof xun wuxuuna leeyahay kadib waxa u noqday hooyadeeda waxa la noolahay hadda hooyadeeda aabahay waa soo booqday kaliya waana sababta aan iskugu fiicnayn aabahayga waxa isdagaalanay waqtigaas ilaa haddana isku fiicnin. subaxdii ku xigtay Jack wuxuu u baxayaa magaalada inuu ka soo qaato sawiro asigoo sawiranayo magaalada qayb kamid ah ayaa waxay is arkayaan gabartan ay meesha ku baranayaan gabartan ayagoo sheekaysanayo ayaa waxa soo marayso Maria oo wadato baaskiil isla markii Maria ayaa si xun u fiirinayso. Jack wuxuu ku soo noqonayaa xaafadda wuxuuna arkayaa Maria oo jiifto laakiin si qarsoodi ah ayuu wuxuu u qaadanayaa sawiro. Jack wuxuu u tegayaa Maria oo ku jirto kushinka oo karsanayso cunno. Jack ayaa Maria wuxuu ku weydiinayso gabarta ula joogtay ma xiriir baan iga dhaxeeyo kaliya waxa hadlaysay Maria. Jackna wuxuu ku mashquulsanaay kaamiradiisa laakiin Maria ayaa weydiinaysa su'aalo fara badan oo ku qancin asiga. subaxdii waxay ku sheekaysanayeen banaanka guriga Maria. Jack wuxuu tusayaa Maria sawirada hooyadiisa waxaan u sheegaysaa Maria inay aqoon jirtay hooyadiisa waxa dhaxmaraya sheekooyin aad u fara badan. Maria ayaa Jack wuxuu u sheegayso iyada inay leedahay uur waxaana ku leedahay waxa uurka ay yeelay wiil jiro 16 sano. waxaana ku leedahay caruurtan yar ee ku jirto caloosheeda hadda ma laho aabe. waxaana rabaa inaa si dhaqsi ah iskaga soo haaqo caruurtan. Maria Jack kama helayso jawaabo fiican. Jack wuxuu ku soo noqonayaa xaafadiisa aabihiisa mar walba wuxuu rabaa inuu Jack la hadlo laakiin Jack ayaa mar walba aabihiisa dhageysanayo wuxuuna u muujinayaa inuu xanaaqsan yahay mar walba waa caasi waardan yar. Jack ayaa wuxuu la soo casheynayo Maria iyo Jack waxa dhaxmarayo sheeko waxaan u sheegaysaa iyada inay jecleeday wiilkaas aad u yar ee u yeelay uurka waxaana ku leedahay asiga ay iga tagay wuxuuna iga dhaqaajiyay wadada. isla habeenkaas Jack oo joogo sariirtiisa wuxuu daawanayay sawirada oo sida qarsoodi ugu soo qaatay Maria wuxuuna dareemayay asiga xilligaas xaalad kale. subaxdii ku Maria waxa uu maanayo ninkeeda hore oo furay isla markiina waxa joogay Jack halkaas wuxuuna dhageysanayay sheekadooda. Maria ninkeeda hore ayaa wuxuu u sheegayo inuu wiil jecel yahay iyada laakiin iyada ayaa ka diidayso waxayna u sheegaysaa inay hadda dhexmari karin xiriirkan uu ahaa kii hore. subaxdii kale Jack wuxuu u imaanayaa Maria kushinkeeda wuxuuna u sheegay Jack inuu joogo xilliga dhalashadiisa laakiin asiga ayaa wuxuu ku dhahayo ii hambaliyay oo isii hab. isla markii Jack wuxuu bilaabayaa inuu taabto jirka Maria laakiin Maria ayaa waxay ku dhufanayso baxyo waxaan u sheegaysaa inuu yahay wiil yar oo akhlaaq xun. isla markii waxa la soo garaacayaa albaabka
Maria ayaa furayso albaabka waxaana taagnaday gabar aad u da'yar waana gabartii Jack hadda kool ku soo arkaysa Maria waxay ku leedahay waxaan u baahanahay Jack ayaa gabartan soo raacayo waxaan dhaxmaray sheeko laakiin Jack gabartan uma baahna asiga waqti badan ee iskaaga luminayo wuxuu dib u soo noqonayaa xaafadda isla markii xaafadda ku soo noqdo wuxuu arkayaa Maria oo murugaysan oo oynayso Jack wuxuu isku dayayaa inuu dejiyo qalbigeeda wuxuu u sheegayaa Jack inuu yahay asiga Maria ilmo ee dhashay camal Maria hadalkaas ay ku farxaysaa isla markaas Maria iyo Jack waxay is siinayaan hab laakiin Jack ayaa xiligan u qaadanayay absintaas nooc kale Jack ayaa ku bilaabay isla markii Maria inuu taabto laakiin Maria ayaa ku xanaaqayso wayna kala tuuraysaa Jack Maria iyo Jack way wada fadhiisanayaan wayna wada hadlayaan markay wada fadhiistaan oo wada hadlaan Maria waxay u sheegi doontaa in uu jiro asiga 18 sano iyadana ay jirto 40 sano waxay u sheegaysaa in uu wax future ah ama mustaqbal ah dhaxmari karin labadooda waxaan u sheegaysaa inay dhali karto asiga waxayna ku leedahay waxa kugu wanaagsan inay xishooti ee xisho laakiin Jack ayaa wuxuu isku dayayo inuu qanciyo Maria wuxuuna ku leeyahay aniga ma ihi sida iimalinaysid Maria ayaa wuxuu ku leedahay asiga waxa leedahay dabeecad aad u wanaagsan laakiin waalidka uu noqo baari labadooda waxa ka muuqatay isku soo dhawaasho isku soo dhawaanayeen maalintii ku xigtay Maria oo ku jirto kushiinka ayaa wax uu maanay Jack waxaanu ka imaanaya gadaashiisa isla markii wuxuu ku bilaabayaa taataabasho laakiin Maria kalkaan kama diideyso waxa imaanayo Jack aabihiisa qof kastan waxay isku boojeynaysaa alaab waxayna iska dhigaysaa inay horeysatay laakiin Jack aabihiisa ayaa wuxuu u waday hadiyad yar hadiyadaas ayaa waxay heeday hadiyada dhalashada Jack oo uu talagalay asiga Jack aabihiisa wuxuu ku leeyahay waxa kugu casuumid Jack cawada casho VIP ah laakiin Jack ayaa wuxuu la hadlayaa si xun mar kale aabihiisa wuxuuna iskaga tagayaa meesha Maria ayaa mar kale waxay qabanayso Jack waxayna u sheegaysaa aabihiisa inuu la hadliyo markasto si qaldan waxayna u sheegaysaa in waalidka sidaas lagula hadlin waxayna ku leedahay soo raargeli aabaha waqtina la soo qaado aabaha adiga Jack wuu soo baxaya wuxuuna la cabayaa cabitaan aabihiisa wuxuuna qaatay hadalka Maria war jaceylku awood badana Jack iyo aabihiisa ayaa wax isku furayaan caloosha mid walbana wuxuu u sheegayaa midka kale wuxuu ka tabanayo Jack ayaa wuxuu ku leeyahay aabihiisa marka hooyo kala tagteen aad guursatay waxaad ugu dhaqmi jirtay si aad u xun Jack aabihiisa ayaa wuxuu ka saarayaa eedo aad u fara badan qaarkoodna oo waxba ka ogeynbo wuxuuna ku leeyahay adiga maad jecleen hooyadeeda odaygan uu isku wareerayaa wuxuuna dul jiifanayaa kursiga Jack iyo Maria waxay isku raacayaan meel banaanka ah waxayna ku soo qaadanayaan halkaas waqti waxayna ku soo naqanayaan guriga isla waqtigaas Maria iyo Jack waxay wada qaadanayaan waqti waxayna noqdeen laba qafood oo ka dhaxeeyo xiriir isla kulankaas dhaxdiisa Maria waxay u sheegaysaa Jack inay uurkeeda laheeday oo ka soo halaabay waxayna u sheegaysaa inay gashay shir gaari Maria ayaa waxay xishoweynayso ooyin laakiin Jack ayaa aamusinaya xiligaas Jack wuxuu ku soo noqonayaa xaafadiisa laakiin aabihiisa ayaa wuxuu ku leeyahay waa markii uu horeyso arka adigoo faraxsan oo hadlaysay si wanaagsan aabihiisana wuu ku qoslayaa wuuna ku farxayaa Jack wuxuu aasanayaa sariirtiisa wuxuuna daawanayaa sawirada Maria wuxuu isku diyaarinayaa inuu baxyo isla markii wuxuu soo xirxiranayaa boorsadiisa waxaanu dib ugu furmaayo iskoolkiisa laakiin Maria ayuu aasanayaa wuuna soo maxsalaameynaya Maria subaxdii waxa baxayay Jack iyo aabihiisa oo isku faraxsanayeen kalkaan Jackna aabihiisa oo ku faraxsanay isla markaas waxa macsalaameynay oo hab isiinay Jack iyo aabihiisa xiriirkoodana wuu soo fiicnaaday Maria waxay aasanaysaa hooyadeeda waxayna u sheegaysaa iyada inay leedahay uur siinkeena ugu dambeeyay muuqaalka waxa ku arkaynaa Maria oo ku faraxsan uurka u qaatay Jack filimkeena maanta wuxuu ku egyahay inta ku kulmeen filim noocan amal waxaan kaaga tagayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh